annagoo rasuulka la joogna calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu arkay dad meel ku urursan markaasuu wuxuu yidhi war halkaa maxaa ka jira dadku ku urursan yihiin rasuulka ilaahay oo xabaal bay qodayaan markaasuu yidhi yaa xabaal bay qodayaan kabaha intuu iladay ayuu dhaqaaqay nebigu isagoo dheeraynaya waanu gaari kari weynayoo annaguna waa la laba lixaadsanay oo waa daba soconnay wuxuu lixaadsado oo rasuulku tallaabsado meeshii qabriga laga qodayay ayuu tagay calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku qabrigii arkay oo la qodayo waa argagax waa isbedelay ilma indhihiisa ka soo daadatay calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku uu kada loobsaday albaraa ibni caazib oo xadiiska warinaya wuxuu yidhi waan daba socdayay intaan soo wareegay ayaan halkaa hortiisa soo fadhiistay bal anigoo eegaya rasuulka waxa uu odhan doono rasuulku waa ilmeynaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku nagu soo jeestay markuu cabbaar fooraray oo ilmadii ka soo daadatay dhulka ay ku dhibcayso garhkiisii ka dhibcayso ayuu kor noo soo eegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ay ikhwaanii istacidduu lihada alyowm walaalahayow maalinkan oo kale u diyaargaroob nin walooba xabaal baa ku sugaysee maalinkaasoo kale u diyaargarooba nebigu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh walaalayaal waxaynu u baahannahay qubuurta xitaa in la soo siyaarto qubuuraha magaalada ku yaala maasacaadka waa loo gelayo in qofku tago bishii mar ama labo usbuucii soo eego waayo rasuulku wuxuu yidhi zuuru lqubuura fainaha tudakiru lmowt wa fii riwaayatin tudakiru alaakhira war xabaalaha booqda booqashada xabaaluhu geeriday idin xusuusinaysaa booqashada xabaalaha aad booqataan waxay idin xusuusinaysaa aakhira buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulku sharciyeeyey in loo duceeyo xabaasha marka la tago laba faa'iidaa loo tegayaa inaad adigu ku waano iyo wacdi qaadatid oo dareenkaaga iyo bal dib isu xusuusatid dadkii halkaasi ku hoyanayaan iyo inaad u ducayso assalaamu calaykum ahla diyaar min almu'miniina waalmuslimiin saadna u salaanto dadkaa daartaa deganay mu'miniin iyo muslimiin ahow waydin salaamay inaad tidhaahdo antum salafuna wanaxnu biاlahar wa fii riwaayatin antum saabiquun waad naga hormarteen oo xabaal baa hortayaad dhimateen waanu idinka daba imanaynaa wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun haddii alla idhaahdo waanu idinka daba iman doonaa nas'alu allaha lana walakum alcaafiya annaga iyo idinkana ilaahay waxaan u weydiinayaa dembi dhaafi subxaanahu wa tacaala iyo cafis haddii xabaal gaala aad soo martidna shareecadu waxay tilmaantay inaad durduro ku dhaafto oo aad nacdasho oo aad tidhaahdo ilaahay nacdashiisu idinku soo degtay cadaabkiisana ilaahay idinku shub ilaahay masaa'ib iyo balaayo idinku rid waa haddaad xabaasha gaalada soo marto innaga wallaahi alxamdu muslimiin baa dee inoo aasan badanka muslimiin baynu nahayoo xabaalaha iyagoo dad muslimiina ku wada aasan waa hadday ku qabsato gebagabadiiyo guntii walaalayaal qofku inuu xusuusto qabriga ama xabaasha uu soo booqdo waxyaabaha aynu ka helaynay faa'iidada ah waxaa ka mid a geeridaynu xusuusanaynaa waxaa ka mid a aakhiraynu xusuusanaynaa hamigan iyo rajadan dheer ee adduunyo la caydhinayo ee qofku uu isleeyahay xaggaa iyo xaggaa iyo xaggaa aad saa yeeshid waa soo yaraanaya qalbigaa inagu dabcaya qalbi khushuucoo dabacsan baynu ka helaynaa indhaha yagaa ilmaynaya oo naftayadaa isbedelaysa khaflada iyo halmaanka aynu geerida iyo kulanka ilaahay iyo aakhira la halmaansan yahay ayaa yaraanaysa waxaa cabsi ilaahay baa qalbigeenna gelaysa dadaal xagga cibaadadaa baa inoo kordhaya diyaargarow aynu qabrigii aakhire u diyaargarowno ayaa inoo kordhaya ilaahay dembigeena dembiga waalidkeenba ha dhaaf rabbana اغfir lana waliwaalidiina waliwaalidiihim walijamiici اlmuslimiina wاlmuslimaat